وين بلاوينا شرحا waxaynu ku soo dhex jirnay badihii kala duwanaa ee ay maansadu lahayd iyo miisaankii maansada gaar ahaan kii gaarhiye gacanqaadano inoo soo socdaa waxaynu soo sheegnay in maansada la baxeeyo oo intii isku qaabdhismeed ah ba dhinac la mariyo markaa hore waxaynu ku soo dhiganay bahda jiiftada gaar ahaan 9 ka mid ah oo buuggeena manhajka ku cusnaa imaka waxaynu dhiganaynaa ma qaadanaynaa bahweyn ka mid ah badaha maansada oo la yiraahdo bahda dhaantada bahdani waxay dhalataa haddii wax laga jaro ama lagu daro dhaantada waa inta ugu caansan dhaantadu haddii aynu kuwaas inta buugga ku xusan soo qaadano waxa jira godmaanseed ay dadka qaarkood u yaqaanaan cadalool qaarkoodna ay u yaqaanaan maroodi cadhoole qaar kalena laga yaabo inay halaan hal u yaqaanaan xilliga caddada ee dayuxu jiro iyo cawaysida noocaasa ayay carruurtu bannaanka ku ciyaari jirtay iyagoo qaadaya tixdan ah maroodi cadhoole haddii cola sheego cadaada ku meere hashii cosob waa tan godmaanseedkan oo taasi ay sal u tahay waa 8 shaqo leh waa 8 shaqo leh ay 8 shaqal afar bownaysan yihiin 1 to 1 way godmaanseedkan loo yaqaano cadaloolku ama maroodi cadhooluhu waxa sidoo kale laga helaa oo uu ku jiraa maansooyinka afka carabiga oo tusaale ahaan fucuulan iyaaka akhaaka waman la akhaaka isagoo soomaalina ah ayaa sidoo kalena laga helayaa halkee carabiga oo xitaa waa kaa marka la sii badiyo ay ka dhalato allahumma salli wa sallim ala habibi muhammad alayhi salam laqaajiya dhiiga dhalinyaraday ruwaaga dhulkeenna ka soo dhiciyay godmaanseedkan waxa ku abuura qaar ka mid ah waxyaabihii dhaqanka ahaa ama soo jireenka ahaa waxa laga yaabaa beelaha jaarka inay isu faanaan markaa in la deegaanka noocaasa lama haysan karo ayaa wuxuu yidhi awaariyo koore afmeerada qaydar idoorku ha haysto agoontu ha oydo ahaan kari maysa buuri kii kalena wuxuu yidhi awaariyo koore afmeerada qaydar idoorku ha haysto agoontu ha oydo ninkii adag baare ayuu yidhi qaar badan oo ka mid ah heesfaneedada ay fanaaniintu qaadaan ayaa ku fadhiya sidii ubax hoyga hareer kaga beeran habeen iyo maalin hortayda ka muuqo tusaale ahaan wiilow balgacaylka adaa wadnahayga xusuusta kuwaabay baa ku fadhida gabadhan macdareen la ilaahay fanaanadii heestii koowaad ee qaadeen magacay kula baxday ayaa godkan ku fadhida waxay leedahay dareen ku bilaabmay bogaygana taabtay bartaa wadnahayga bilaawaha gaadhay maxaan baraf jiiday dadkoo ka baqaya dhibtaa u badheeray jacayl basanbaasa yarkii ugu beeray hadduu bogu waayey ilaahiyo dhaarle waxa kaloo ka mid ah heesaha ama maansooyinka ku qotamata la yidhahdo hambaadir ee hasrawtiiyey 82 markii hargeysa lagu xixeeyay dhalinyarada ufo hargeysi ma toostay halqood kama diiday hoggaan kama tuurtay hidday u lahayde markuu saaleeyaan sidii hebadgeel horaadada dhiibin maansada noocaas hambaadir la yidhaahdo raawi waxay ku fadhidaa gudmaanseedkan cadaloolka ayay ku fadhidaa sidoo kale
suugaanta laga sameeyo waxa ka mid ah gaari ayaa loristeetanadii waxa ka dawladii Soomaaliya oo waxaan qabanaynaa waxa loo yaqaan contraband ama ganacsiga sharci darrada waxa laga yaabaa ganacsiga sharci darrada inay sameeyeen dad la naas muujinayo oo ganacsataa isla markaana la xidhiidhayo maxay dad yar yar oo maxasa oo waxba aan galabsan salahan waxaan xasuustaa dahabkiisaba 2017 waxa dhacday afar dumar ayaa suuqa laga qabtay waxa ay caalankii Soomaaliyeed xidhantii hadda dhar buluug u bixiyay qofku hadii uu caalanka u kasayno xidho iyo hadii dhar buluug xidho soo kala ma kadib waxay yiraahdeen anagu caalan ahaanba uma adeegsanayna maryahaan baan u xidhnay ninka halka kaariyona ku haysta ayaa laga iibiyay kiina wala soo talacay isagii wuxuu xidhay bakhaarkaas ay iibiyay anigu waxa ma soo dejiyay bakhaarkaas ayaa iga iibiyay kii bakhaarka waa lagu dhici waayay kii bakhaarka waa lagu dhici iyaguna maxkamadda gobolka way sii deysay waayo waxa la cadeyn waayay inay dalkan caalan ahaan u xidhnaayeen ambil baa laga qaatay oo 120 dheeraad xiran ayaa markii dambe la fasaxay maasada uu gaariitri waxay ahayd waxa kamid ah cadowga saboolka أنا عد كباهن على سدلين أنا عبيرة ما صنع عشان على الجلابات فوق يعيد جوته دم بيقول عيدي والحكوشة قبل يسلبت العيد وروح ليه هيون ميان عدلات عيارتها بين عذور تكوه سن مرود على هدي على شيء على ده وماله هالشيء عصب واطن مركز رجل جدبه قد كاس عدلات أملوا سديد شغالة ما حاول يسوي قال حساب حنا أو 1 2 1 2 1 وحسب ما اسمه قد كلا ولا يلا محي بارعده سو كلا ديجانا قال لو يقانا ما عام بقواه لو يقانا محي صار بارعده وعيال وغير لا عياله صار لا وعيال وكونفور بصار لو يقانا وغير محي بارعده بارعده سما hadii laba shaqo lagu daro cadalool sidaas awgeed dhismihiisa saxda ah way toban leeyahay sidaas awgeed dhismihiisa saxda ah way yahay maxay 10 shaqale way baraduhu wuxuu ku qotoma ciyaar la ciyaari jiray oo ah hiyeelo hoobiwa habluhu gaagaabana magudin baa lagu sartare maguri bay wada gala hiyeelo hoobiwa ciyaartaas ayaa sal u ah salkuna waxa uu caan ku yahay ama uu yahayba maansooyinkii uu jirin jiray loo haysan ninkii abwaanka ahaa ee loolan jiray kuma Calays Ciise Kaarshe hees kasta oo Calays qaaday ama sameeyay wasaara moo barcade ama ha ahaato iskiinee wuxuu qabsada ama ha ahaato hooyadu waa lama huraan ama ha ahaato waraabo maalin wacan cadaloolka ama baaracadaha waxaan jira baaracadaha ama saarka waxa ku qotoma qaar ka mid ah heesa caan ah oo suuqa laga isticmaalo ama dadku ay aad u maqlaan oo tusaale ahaan ma boosaasaad ka timi ma soo badi baad istiri ma boorkay kugu qasay waxa ku qotoma Ismaaciil caga daweyn shanaagood buu wataa shantuba shahaada waxa ku qotoma qaar ka mid ah heesanaadada ay maqaano jacayl ma mooshi karo sidii ma igu daa minood buu kugu diraa micida waa loo dhintaa musiibadu way jirtaa xageeban adigu marin qalbigu waa meel u leh waxa ku fadhiya heesaha ay ka tahay waxa ceebta u taqaan dad bay caadadooda tahayba u fadhida waxa ku fadhida ileen hoogi kuma bogsiiso hamigu warwar kama biyo adduun hawli kuma dhamaato waxa ku fadhida
شعيب قبيوبيو نصيب قدر باجيو قيمات كلها هي أكتر أيام كفردها waxaan yiri markay soo koobno godka loo yaqaan baarcadaha ama loo yaqaan maxay saar waa 10 shaqale waxaan u dhashaa hadii godkii cadaloolka ama marooda cadalaha lagu daray mise shaqal laba shaqal way hadaba hadii godkii baarcadaha ama saar lagu daro hal shaqal gaab lagu daro maxay hal shaqal gaab oo xagga dambe ah waxa sameysmo god kale oo la yiraahdo maxay sabaalo oo la yiraahdo maxay sabaalo waxay ku fadhidaa heesihii ay hooyadu ku sabi jirtay ama ku sheexin jirtay maxay caruurta ay ku sheexin jirtay maxay caruurta wana koobiyo toban shaqal sida uu saxda ku yahay ama dhismihiisa marka xisaabta loo waafajiyo koobiyo toban buu noqonayaa hobeya kuma dilayo dagaalay Soomaa kuma duul kulul ku jeexay kuma deyn u sheeganay ninkii dilay dagaala ninkii duul kulul ku jeexa dagaal baa naga dhaxeeya sidii bilanay biladato beeli aragtay ama dayaha adari lagu soo wada banaanbax waxay markaa hooyada la jirtay ma aabaha baa socdaalo socod ku raagay manaaskii baa gabnoobad godol ka weyday mageeli baa arooro oo ku raagay heesta noocaas halabuurka Soomaalida qaar badani way ka sameeyaan heeso ama maansooyin salahan maansada weersame ee Galileya la yiraahdo oo taariikh ama dhalinyaro badan oo badda ku dhimatay 2008 ka tiriyay wadkana gamaskiin ma baaqdo isha gabadheed ma ishi galbeed Yurub kuma yeelan giriiguna kuma baa dalkaagana kama go'aysin ama markuu leeyahay baska roolida dhigaya hafuul sidii rakaab maansooyinkaas rawi sameeyay qaar baa ku fadhiya godkan sida tusaalahaan sadara ka mid ah heesta anigu ku habaari maayo kuwaase ku raadinaysa hoygii madhan wiilashiisa hablaha kacay baa u yeedha Sooma halna jecel baa u heesa way hoobaanta agtaada taala hadhiinadu baadi weey ama markuu jaraadra uu leeyahay ugaashadu meeday daraata miyaan la aasin markii araga la waayay miyaan kafan loo ama hasoma miyaan jinku qaylo ooyin miyaan insigii la yaabin godkaas waxa albeeg ah koobiyo shaqalaha ah heestaas hooyadu ay ciyaalka ku sabto ee ah hobeya way hadaba hadii mararka qaarkood ama hal shaqo lagu daro godkaas ama lagu daro oo 12 la noqdo waxaan jeedaa hadii godkaas lagu daro saddex shaqo hadii godkaas lagu daro maxay saddex shaqo sida inta badan uu saxda ku yahay waxa sameysma godmaanseed magacyo badan looga yaqaan deegaanada Soomaalida meelaha qaar waxa laga yaabaa in looga yaqaan maxay dhaanto meelaha qaar waxa looga yaqaan hirwo meelaha qaar waxa looga yaqaan maxay heelo meelaha qaar waxa looga yaqaan balwo meelaha qaar waxa looga yaqaan maxay wiglo salahan waxay ugu horeynaa balwada maxay balwada waxay ciyaar laga ciyaaro gobolka Awdal iyo